الله الرحمن الرحيم داود يالكوسو دوادا وربحين قارا انو كنت دياريني taariikhda siyaasiga caanka cabdiraxmaan cabdi shakuur warbixinta waxa soo koobaya anigoo adri sheekh Axmed Guure iyo saaxiibkii Cabdisalaan Kacaan cabdiraxmaan cabdi shakuur cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame waxa uu ku dhashay degmada Buulaberde ee gobolka Hiiraan dabayaqadii lixdamaadkii waxaana uu tacliinta hoose dhexe iyo sare ku qaatay isla degmada Buulaberde ee gobolka Hiiraan isagoo 2 sano gurmad qaran ku qaatay isla deegaankaasi cabdiraxmaan waxa uu shahaadada koowaad ee jaamacadda ka qaatay jaamacadda caalamiga ee wadanka Suudaan oo uu ka bartay sharciyada isagoo shahaadadii labaad ee master degree ku sameeyay law comparative federalism wadanka Malaysia jaamacadda National University of Malaysia waxa uu koorsooyin la xiriira qorsheynta hoggaanka maamulka xalinta khilaafaadka dhismaha nabadda iyo xiriirka istiraatiijiyadda ku sameeyay macadka hoggaanka maamulka magaalada London cabdiraxmaan ka hor inta uusan ku biirin siyaasadda waxa uu ka shaqeeyay arrimaha samafalka isagoo madax ka noqday hay'adul ulya waxa kale oo ka mid ahaa dadka u dhaqaaqa siyaasadda dadka Soomaaliyeed isagoo ka mid ahaa asaasayaashii Somali Congress Group iyo Somali Diaspora Conference waxa uu madax ka noqday xarunta Islaamiga ee waqooyiga magaalada London oo xarunta saddexaad ee dalka Ingiriiska ugu weyn waxa uu ka soo shaqeeyay saxaafadda isagoo tafatire ka ah website-ka Goobjoog iyo Majlatul Hiral waxa uu xubin joogta ka ahaa muddo 10 ka badan xarunta daraasaadka xiriirka dawliga ee Chatham House waxa kale oo garwadeen ka ahaa shirkii dib u heshiisiinta ee Djibouti isagoo madax u ahaa wafdigii wada hadallada u metelaya ismaaciilsiga dib u xareynta Soomaaliya halkaas oo lagu soo dhisay dawladda haatan miraheeda aynu guranayno cabdiraxmaan waxa uu noqday xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isagoo loo magacaabay wasiirkii qorsheynta qaranka iyo iskaashiga xiriirka caalamiga waxa uu Soomaaliya u metelaya shirar heer gobol iyo mid caalami oo badan isagoo gudoominaya shirkii ugu horeysay oo muddo 20 sano ay Soomaaliya shir gudoon ka noqotay golaha wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta oo ka dhacay dalka Masar halkaas oo wasiiradii iyo safiiradii shirkaas ka qayb galay ay Soomaaliya ugu hambaliyeen amaan uu soo jeediyay qaabkii uu shirka u hagaajiyay cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame gaar ahaan xirfadii diblomaasiyadda ee uu muujiyay markii khilaaf xooggan uu soo kala dhex galay dalalka Iraq iyo Suuriya waxaana uu ka mid ahaa guddiga loo magacaabay inay xaliyaan khilaafaadkaasi oo markii dambe ku guuleystay inay soo dhameeyaan khilaafkii u dhaxeeyay labadaas dawladood cabdiraxmaan wuxuu shirkii Kampala ee lagu saxeeyay heshiiskii roadmap-ka ku metelay baarlamaanka halkaas oo ay gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha ku kala saxeeyeen Kampala Code cabdiraxmaan wuxuu la taliyay muddo sanad iyo bar ku dhawaad u ahaa madaxweyne Xasan Sheikh isagoo si gooni ah ugu xil saarnaa shirkii London kana qayb qaatay wada hadaladii Jubbaland iyo dawladda federaalka cabdiraxmaan wuxuu iska casilay xilkaasi kadib markay isla jaan qaadi waayeen raggii talada dalka isku meeray wuxuuna cabdiraxmaan la taliye sare arrimaha siyaasadda u noqday ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya ambassador Nicholas Kay iyo sidoo kale Michael Keyti halkaas oo uu kala shaqeynayay arrimaha dhismaha dawlad goboleedyada dib u eegista dastuurka diyaarinta arrimaha hanaanka doorashada iyo dejinta siyaasadda amniga cabdiraxmaan waa nin aqoon u leh diinta islaamka gaar ahaan si qoto dheer u darsa falsafada iyo fikirka islaamiga ee mucaasarka ah cabdiraxmaan wuxuu qayb ka ahaa kulamo wada tashi siyaasadeed oo joogto ah kuwaas oo ka dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa natiijadii wada tashiyadaasna waxa ka soo baxay xisbiga wadajir ayaana ugu dambeyntii go'aansaday in mudan cabdiraxmaan uu noqdo musharax u taagan xilka qabashada madaxweynaha dalka Soomaaliya mudan cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame waa siyaasi aqoon-yahan waa aragtinimo iyo sooyaal siyaasadeed soo jireen leh waa xogaal xaaladihii siyaasadeed ee dalku soo maray waa geesi karti iyo dulqaad badan cabdiraxmaan wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta farakutiriska ee kulansada aqoonta maadiga iyo tan diiniga ee u furan dunida reer galbeedka iyo tan Carabta waa siyaasi dhextaal u ah jiilka siyaasadeed ee Soomaaliya ku hardamaya waa siyaasi galaangal u leh xogaga siyaasadeed ee kala itijaaha duwan intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintii aan kaga diyaarinay taariikh nololeedka siyaasiga caanka ah cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame